كان waxaa lagu soo eedeeyay unug yar oo qiyaastii 4 sano jir ah oo hadda marakan isaga lafta lahaantiisii isbitaalka ku jiro lana helay isaga oo suuqsan dadkii ugu horeeyana ay sheegeen inuu xilligaas ahaa qof yacni waxyeelo badan ay ka muuqato waliba xagga dhuuntiisa iyo xididada xawlmaridiyada kadib markii arintaas ay wiilkii dhacday waxa la soo wargeeyay laamaha amniga booliiska khasitan waxa ka howlgalay laanta CID-da ee dambe baarista oo ku shaqaalay barnaamijyada noocan oo kale taa sidii ay u fududayn lahaayeen dhacdadaasna ay banaanka ugu soo dhigi lahaayeen iyo cidii ka dambeysay baa ka howlgalay waqti adigu baariseed iyo waqti dabagal kadib waxa u fududaatay eedeysane Maxamed Cismaan Haafow oo hadda adarkaysid oo dhinacayga fadhiya in lagu soo qabtay iyadoo aan ahayn shakhsi la isaga soo dhigay ee la isaga soo qabtay ee astaamo badan ee raac ah lagu daba socday raadka wiilka meeshuu yaalay oo ka cararay oo laga qaaday meeshii isaga uu ka shaqan jiray oo beerta ahayd oo uu galay dadkii yaryara ee la kulmay marka uu ka fadaday sida ay cadaymaha markaantiga u sameeyeen oo ka orday markuu arkay dadkan kale tacaruurta u yimid waxyaabo badan oo astaamahoodu ay noqon karaan kuwo boqolkiiba boqol noqon kara wax cad ayaa lagu soo qabtay haddana baaristiisii way socotaa raadad badan oo horeeto oo la hayo baa jira waxaan u jeclahay kiiska laftiisu isagoo dhammaystiran kulay waa khasab waa heli doontaan xogtiisa laakiin kiiska lagu soo eedeeyay oo hadda eedeysana ku yahay lawal baaristiisa ayaa socota waa kiiska noocaas fal dambiyeedkiisa waa aniga oo ah Hodan Axmed Cismaan wiilkaas hal sano bar buu jiraa magaciisa waa Warsame Cabdirasaaq Warsame waxa laga qaatay gurigiisa laga qaatay 8 saac asagoo hurdo ka soo kacay baa laga watay aniguna guriga waan ka maqnaa ilmo yar baa joogay ilmihii buu ka dhex qaatay guriga boodkiisa meel aan u dheerayn buu ku cunay tooriyuu galiyay 4 qodob dhuunta la tolay 4 qodobna madaxa la tolay 2 qodobna waxa la tolay qaab xunshada markaas aan magaaladan jira baabuur ka soo qaatay waa la qaaday isbitaal baan geeyay isbitaalkii markii la geeyay wiilka sharoob waxa la siiyay irbado maxaan ku dhahaayay eedaysanihii cunugaas dilay wuu soo noqday gurigi mar labaad buu ku soo noqday mar labaad hadduu ku soo noqday raadkiisii baa la qaaday ilaahayga casiiska ahaa wuu ii bayaaniyay oo warkiisii waan helay waa xiran yahay oo wuu joogaa